wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo ay weeliyaan taliyaha xoogga dalka Jeneraal Odoa Yuusuf Raage iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Xasan Maxamed Gacaliye ayaa kulan maanta magaalada Kampala ee caasimadda Uganda kula qaatay wasiirka gaashaandhigga dalka Uganda mudane Vincent Bamalagangi. kulanka goobjoog ka ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalkan Uganda danjire Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagbaruur. labada wasiir ayaa ka wada hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga wada shaqeynta ka dhaxaysa labada wasaaradood. ugu dambeyntii labada wasiir ayaa qaranka ku duugay qodobo loo wada hadlay kulanka. agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Xasan Maxamed Gacaliye oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ugu warbixiyay wixii labada wasiir ka wada hadleen. waxaan maanta Kampala ku soo gabagabeynay shir socday 4 Agoosto ilaa 5 Agoosto oo maanta ah. shirkaas uu ka koobnaa guddi wada jir oo hogaaminayaan labada wasiir oo gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya iyo dowladda Uganda. waxaana intaa u dheer shir kale ee madaxda ciidamada dalka Soomaaliya iyo Uganda ay ku qabsaneen isla maanta. shirka wuxuu ahaa mid wada jir ah oo labada taliska iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya qayb ku lahaayeen. marka shirkani waxaa laga shaqeynayay safgarad in la ballaariyo safgaradkii 2016 ka dhaxeeyay labada dowladood kaasoo taabanaynin arrimaha ciidamada iyo amniga. annaga waxaanu ka shaqeynay wixii annaga naga quseeyay arrimaha ciidamada sida labadeena dal u samaysan lahaayeen iskaashi amni ciidan. marka waxaan rajaynaynaa kolley in maalmaha soo socdo waxaanu ka shaqeynay miro dhalkooda in la arki doono. wafdigan booqashada rasmiga ku jooga dalkan Uganda ayaa la filayaa in heshiisyada afgarad ay dhawaan ku kala sixiraan dalkan Uganda dhigooda.